kulan lagu dhaliiliyay siyaasadda maamulka Hirshabelle ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Warkaasi waxa magaalada Beledweyne inooga soo diray wariyaheena Cabduqaadir Nadaara. kulankan u dhaxeeyay mid kamid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa waxa lagu dhaliilay siyaasadda dawlad goboleedka Hirshabelle. kulanka waxa ka soo qayb galay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ay waliba waxgaradka gobolka Hiiraan. qaar kamid ah odayaasha kulanka ka hadlay ayaa maamulka Hirshabelle ka codsaday in ay ka helaan saamiga ay ku leeyihiin gobolka Hiiraan. dawladihii meel gaarka ah dawladii federaalka ahayd maamul goboleedada ka dhisan gobolada Soomaaliya qaasatan maamulka Hirshabelle intaas dawladdan oo soo sheegay oo saddexda qaybood ah beesha iyo bardiga kama ayna helin xuquuqdeedii iyo masiirkii iyo magacay ku lahayd gobolka Hiiraan waxay la mid tahay caashada biyaadka ama foorka waxba ku boqon sidaas ayayna beeshu iyo bardiga gobolka Hiiraan ayaa wax masiir oo soo qornay Hirshabelle maamulkiisa guud iyo midka gaarba haddaysa ka tabasulin oo ina ka bixin raaligelin waxaa loo dambeeya waad garanaysaa Soomaalida warbaahinta maqli waa dhagaysanaysaa waxaa loo dambeeya inaa yacni wax cidada ku dhufan xaga soo dhufan saasaa loo dambeeysa shacabka iyo bardiga yiri waxaa beesha ay ka cabanaya bardiga sidoo rabbi u horeeyo u yiri maamuladii ku meel gaarka iyo federaalka inta ka dhaxaysa iyo maamul goboleedada maanta joogo waxaan ka cabanaynaa xuquuqda aan beledkan ka lahayn. gabagabada kulanka u dhaxeeyay mid kamid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa laga soo saaray war murtiyeed ka koobnaa 5 qodob. war murtiyeed ka soo baxay beesha iyo bardiga annaga waa odayaasha dhaqanka aqoonyahanka waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada beesha iyo bardiga ee degta gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo nawaaxigeeda wada hadallo iyo isxogwaraysi dheer dal iyo dibad kadib oo aan uga hadlaynay cadaalad darrada laga soo bilaabo xilligii ku meel gaarka ahaa ilaa maanta oo loo gudbay dawlad rasmi ah oo dalku ka dhismeen dawlad goboleedyo oo aan filaynay in maamulka Hirshabelle uu wax ka qaban doono maadaama lagu dhisay awood qaybsi nasiib darro waxaa dhacday in uu uga sii daray cadaalad darradii horay u jirtay sidaa darteed ayaan ka soo saarnay qodobadan hoos ku qoran 1 in maamulka Hirshabelle uu joojiyo cadaalad darrada ilaaliyana nidaamka awood qaybsiga siiyana beesha waxa ay xaq u leedahay maadaama aysan wax xubina ku lahayn maamulka heer gobol iyo heer degmo intaba. qodobka labaad in beesha iyo bardiga weligeed jeclayd dawladnimada aanay ka hor imaan dhammaan maamuladii soo maray gobolka isbaarana aysan ku raadinayn xuquuqda ay leedahay. 3 in beesha iyo bardiga aanay u dul qaadan doonin in lagu xadgudbo xuquuqda ay leedahay cidna uga haybaysan doonin. 4 inuu maamulka Hirshabelle uu jawaab degdeg ka bixiyo xuquuqda ay beesha ku leedahay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne. 5 in haddii uu baaqan wax ka qaban waayo maamul goboleedka Hirshabelle ay beesha go'aan degdeg ah ka qaadan doonto dalka iyo dibadda. wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cabduqaadir Nadaara RTN TV Beledweyne.